kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa kaydka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa ka mid ah ciidamo ka amar qaata madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo dhaqdhaqaaqay ciidan ka bilaabay xarunta madaxtooyada Soomaaliya xilli la arkay gaadiid dagaal iyo ciidamo aad u badan oo soo buux dhaafiyay madaxtooyada gudaheeda iyo banaankeeda xasan daahir aweys oo si adag kaga jawaabay hadal dhawaan ka soo yeeray Xuseen Ciidiid weerarna ku qaaday madaxweyne Farmaajo madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabeelle oo eedayn culus u jeediyay madaxweyne Farmaajo kuna tilmaamay tallaabadii uu qaaday inay ahayd afgambi fashilmay iyo dawladda Soomaaliya oo ka hadashay waxyaabihii lagu arkay xeebta liida isla markaana shacabka Soomaaliyeed ay la yaabeen intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeena imikiyaatan u diyaar garooba daawashada iyagii oo intaa ka dhameystiran waa 3 bisha koowaad sanadka 2022 hadii ay tahay markii kuugu horeysay oo soo booqatay channelkeena haylaawina subscribe tiraadid kadibna aad furatid calaamada gambaleelka si ay kuu soo gaaraan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku share gareynaya baraha bulshada inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dalkeena dib u celin kara ciidamo taabacsan madaxweyne Farmaajo ayaa dhaqdhaqaaqay ciidan waxa ay ka bilaabeen gudaha xarunta madaxtooyada Soomaaliya sida ay xaqiijiyeen dad aad ugu dhow xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waxa saacadihii ugu dambeeyay bilowday qorshayaal ka dhan ra'iisul wasaare Roble isla markaana ah dhaqdhaqaaq ciidan oo ay wadaan ciidamo taabacsan madaxweynaha dawladda Soomaaliya dhaqdhaqaaqan ciidan ayaa la sheegay in si weyn looga dareemayo gudaha xarunta madaxtooyada Soomaaliya isla markaana la arkay ciidamo badan iyo gaadiid lagu jaray albaabada qaar ee xarunta madaxtooyada waxaana la sheegay in qorshahan uu yahay mid looga gol leeyahay in mar kale xafiiska lagu hor istaagay ra'iisul wasaare Roble gabi ahaanna madaxtooyada ay gacantooda gashay madaxweyne Farmaajo iyo saaxiibadiis ciidamadan ayaa la sheegay in qiyaastii ay yihiin ciidamo aad u badan isla markaana lagu arkay gudaha madaxtooyada iyo banaankeedaba qorshahan ayaana waxa uu yahay mid ay aad kaga digayeen maalmihii ugu dambeeyay xubno badan oo ka mid ah mucaaradka kuwaas oo ka warhayay in qorshayaal kala duwan ay ka bilaabanayaan xarunta madaxtooyada oo ka dhan ra'iisul wasaare Roble dhaqdhaqaaqan ayaa markii uu soo ifbaxayba waxa dad badan ay ku macneeyeen in uu yahay mid gabi ahaanba si toos ah loola wareegay xarunta madaxtooyada oo gacantiisa ay ku laabanayso madaxweyne Farmaajo isla markaana ra'iisul wasaare cusub uu soo magacaabi doono dhawaantan xaaladda ka jirta madaxtooyada Soomaaliya ayaa xilligan waxa ay tahay mid mar kale lagu halgaleysay inay ku dagaalamaan laba ciidan oo ka kala tirsan xafiisyada ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo sidoo kale tan waxa la sheegay in abaabul ciidan oo ka dhana madaxweyne Farmaajo iyaguna ay bilaabeen ciidamo ku sugan xafiiska ra'iisul wasaare Roble iyo agagaarkooda laakiin inta ugu badan madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxay tahay mid ay gacanta ku hayaan oo lagu arkay ciidamada cusub kuwaas oo aan hore loogu arki jirin gudaha madaxtooyada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa uu wada abaabul ka dhan ra'iisul wasaare Roble iyo qorshayaal kala duwan kuwaas oo ah kuwa gabi ahaan boodada loogu xaarayay sidii loo soo magacaabi lahaa ra'iisul wasaare cusub isla markaana xilka looga qaadi lahaa ra'iisul wasaare Roble lama oga halka ay ku dambeyn doonto xaaladda kacsan ee ka jirta madaxtooyada Soomaaliya ee ku aadan ciidamada dhaqdhaqaaqyada ka bilaabay isla markaana lagu arkay gudaha madaxtooyada iyo banaankeeda kuwaas oo taabacsan madaxweyne Farmaajo tallaabada uu qaaday madaxweyne Farmaajo ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli ay sii xoogaysatay xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysay ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo isla markaana xilligan ay jiraan qorshayaal kala duwan iyo abaabul ciidan oo labada dhinacba ay ka wadaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka xasan daahir aweys ayaa weerar adag ku qaaday Xuseen Ciidiid iyo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya xasan daahir aweys oo ka jawaab celinayay waraysi uu dhawaan bixiyay siyaasiga Xuseen Maxamed Faarax Ciidiid oo uu ku sheegay in Farmaajo aan la dagaali karin oo xabad aysan ka dhici karin magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka xasan daahir ayaa sheegay in waraysigaas uu soo gaaray isla markaana uu dhageystay ayna kaga soo baxday in Xuseen Maxamed Faarax Ciidiid uu soo maray meel mar horeeta laga soo gudbay sidoo kalena Farmaajo uu ku tilmaamay nin la mid ah Xuseen Maxamed Faarax Ciidiid oo isaguna awood isbiday xasan daahir aweys ayaa sheegay in mar lagu sirmay Xuseen Ciidiid oo loo maleynayay in uu leeyahay kartidii aabihii oo kale balse hadda uu joogo halkii uu marayay markii lagu sirmay xasan daahir aweys ayaa waxa uu kaga mahadceliyay beesha Abgaal inay iska aamusiyeen dadkii la midka ahaa Xuseen Ciidiid oo uu ka carbaabay Cali Maxamed Geed iyo Salaad Cali Jaale xasan daahir aweys oo la hadlayay Farmaajo ayaa sheegay in awood aanan jirin ay maskaxda uga jirto isagoo u fakaraya sidii uu u fakari jiray Maxamed Siyaad Barre sida uu sheegay xasan daahir aweys ayaa Farmaajo ku dhaliilay sababta uu la dagaalay ra'iisul wasaare Roble iyadoo la wada ogyahay in markii horeeta isagu uu doorbido oo uu keensaday waxa uu sheegay in dadka haddii laga xishoodo si kasta oo ay u qabow yihiin in ugu dambeyntii ay qarxayaan wax walbana ay haleynayaan hadalka ka soo yeeray xasan daahir aweys ayaa waxa uu jawaab celin u noqonayaa hadal dhawaan ka soo yeeray Xuseen Ciidiid kaas oo sheegay in magaalada Muqdisho ay tahay mid marnaba aanan macquul ahayn inay ka dhacdo xabad waxaana hadalkaas uu ahaa mid uu ku garab istaagay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa ka hadashay waxyaabihii dadka ay la yaabeen ee lagu arkay xeebta liida ee magaalada Muqdisho
xeebta liida ee magaalada muqdisho ayaa maalinkii shalay ahayd waxaa lagu arkay xumbo ama xoor badan taas oo badda gudaheeda ka soo baxaysay ilaa iyo haddana la garan la'yahay waxyaabaha sababa ama ay ka dhalatay xoortaas weli ma jirto cid baaritaan dhaba ku samaysay oo ogaatay bulshadan la wadaagtay waxaa sababay in baddu ay soo tufto xumbo intaas la eg ha yeeshee agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Soomaaliya Maxamuud Sheekh Cabdullaahi oo la hadlayay warbaahinta ayaa wax laga weydiiyay arrintan isagoo tilmaamay in ay tahay khatar caafimaad mid ay ka dhalan karto agaasimaha ayaa sheegay in xumbo badeedkan ay keento isbeddelka cimilada iyo saliidda ay iska beddelaan doomaha taas oo lagu daadiyay gudaha badda sidoo kale agaasima Maxamuud Sheekh ayaa waxa uu sheegay in qashinka lagu shubo badda uu isna sababo in biyuhu ay xumbeeyaan taas oo badanaa dhalisay khatar caafimaad oo saameeya dadka deegaanka maalintii shalay ahayd ayaa boqolaal ka mid ah shacabka Soomaaliyeed waxay ku arkeen xeebta liido iyagoo ku sugnaa xumbo badan oo badda ay soo tufaysay taas oo ah mid aanan hore loogu arag waxaana durba ka dhalatay hadalhayn badan oo bulshada Soomaaliyeed ay ka sameynayeen dhacdadan oo ahayd tii ugu horreysay ee aaggaas lagu arko dad badan ayaa durba isweydiinayay waxyaabaha sababay in xumbo intaas la eg ay gudaha badda ka soo baxdo oo bannaanka ay timaado qaar ka mid ah dadkaas ayaana sheegayay in arrimahan ay yihiin kuwa ay sababeen kiimikooyin lagu shubo badda gudaheeda oo wadamada shisheeye ay iska soo dhaqaajiyeen xeebta liida ayaa waxay tahay meel dad badan ay u damaashaa tagaan isla markaana waqti qurux badan ay ku soo qaataan laakiin xilligan waxaa soo baxaysa digniin adag oo laga muujinayo khatarta caafimaad ay ka soo gaari karta dadka u dalxiiska taga xeebtaas ugu dambeynna madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa weerar ku qaaday madaxweyne Farmaajo Maxamed Cabdi Waare madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabelle ayaa ka hadlay dhacdadii xafiiska ra'iisul wasaaraha ka dhacday 27 Diseembar taas oo ra'iisul wasaaraha iyo mucaaradkaba ay ku tilmaameen afgambi fashilmay Waare waxa uu tilmaamay in tallaabadaas ay ahayd mid aanan sahlaneyn isla markaana dhalisay dhowr arrimood oo ku soo siyaaday siyaasadda Soomaaliya sida in dastuurka dalka la iska tuuray iyo in si bareer ah uu sharcigii dalka ugu tuntay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadalka madaxweynihii hore ee Hirshabelle ayaa ku soo aadayay xilli weli uu taagan yahay khilaaf culus oo u dhaxeeya madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble khilaafkaas ayaana waxa uu gaaray meeshii ugu sarreysay iyadoo xilligan ay jirin wax dadaala oo laga dhex wada madaxweynaha iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Maxamed Cabdi Waare madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa dhowr jeer sidaan oo kale waxa uu weerar afka ku qaaday madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya isagoo sidoo kale dusha ka saaray mas'uuliyadda eedihii ugu badnaa ee uu soo jeediyay Dr. Maxamed Cabdi Waare madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabelle ayaa ka mid ahaa mas'uuliyiintii sida weyn kaga soo horjeeday nidaamka wax ku wada madaxweyne Farmaajo isla markaana noqday mid aanan ku soo laaban doorashadii ka dhacday deegaanada maamulka Hirshabelle isagoo xilligaas eedeyntii ugu cusleed u jeedinayay madaxweyne Farmaajo madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa xilligan u muuqda nin ku mowqif ah mucaaradka Soomaaliya kuwaas oo afgambi ku tilmaamay dhacdadii ka dhacday 27 Diseembar magaalada Muqdisho gaar ahaan xafiiska uu ku shaqeynayay ra'iisul wasaare Roble waxaana jiray shakhsiyaad badan oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed kuwaas oo si adag u cambaareeyay tallaabadii uu qaaday madaxweyne Farmaajo isla markaana la doonayay in gabi ahaanba meesha looga saaro ra'iisul wasaare Roble dhacdaas ayaa xilligan dad badan waxay u arkaan inay tahay mid sii xoojisay khilaafka meesha adag gaaray ee u dhaxeeya ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo isla markaana weli lagu guuleysan laayahay sidii looga gudbin lahaa isla markaana loo xalin lahaa guud ahaanna waxaa intaasi ku dhan warkii oo aad ka daawanayseen kaydka wararka haddii ay tahay markii kuugu horreysay ood soo booqatid janalkeenna ha ilaawina subscribe tiraadid kadibna aad furatid calaamadda gambaleelka si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka siina laagaree muuqaalkan si uu u gaaro saaxiibo badan oo jecel horumarka dalka iyo dowladnimada